taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa ay digniin ka soo saareen isla markaana ay ku wargeliyeen dhammaan ciidamada ka tirsan hay'adaha ammaanka in aan la ogolayn isla markaana ay mamnuuc tahay in askari hubeysan uu isticmaalo mootafeekom. sidoo kale gudaha caasimadda ayaa waxa laga mamnuucay askari aan hubeysnayn oo shaqo ku jirin in lagu dhaxarko. warqad ka soo baxday taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in askariga ka dhaga adeega awaamirta ka soo baxday hay'adaha amniga in gacanta lagu dhigi doono isla markaana sharciga la waafajin doono. dhanka kale ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan saldhigga Hodan ayaa waxa gacanta ay ku soo dhigeen eedeysane Dable Liban Mustafa Aadan oo ku eedeysan in dhacis xiga oo uu ka geystay dhowr degmo oo kamid ah caasimadda. eedeysanahan ayaa haatan ku jira gacanta booliiska waxaana loo gudbin doonaa maxkamadda ku shaqada leh sida lagu sheegay warqad ka soo baxday taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu baaqay dhammaan dadka ku nool caasimadda Soomaaliya in haddii la kulmaan falal noocan oo kale in ay soo wargeliyaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed isla markaana saldhigga ugu dhow ay soo wargeliyaan si wax looga qabto isla markaana gacanta lagu soo dhigo shakhsiyaadka ku lugta leh falalka noocan oo kale.